doorashada madaxweynaha dowladda wareegii labaad ee doorashada madaxweynaha dowladda waqooyi bari waxay u dhacday sidan waxaa cabdiqaadir axmed aw cali firdhiye uu helay 62 cod cabdirisaaq khaliif axmed wuxuu helay 18 cod 2 cod way xumaadeen totalku waa 82 xildhibaan oo codeeyey madaxweynaha dowlad goboleedka waqooyi bari ee 5 sano ee soo socota waa cabdiqaadir axmed aw cali